markaasaan xir naagta AIDS bay igu riday inta markaan wiilka qalinka haye dhulku kaga dhac kiis culus waay labadii kale albaabka isku qabteen kii hormari lahaa kiis wiliga la maqlay maaha wax la maqlay wax meesha yimaaday iyo ma ah subxaan qof walba wuxuu jiray inta qof ku taaban lahaa qofkaas jirkiisa kore ku taaban lahaa joona ku taaban carar ninkaan xoogaa deganaayo wuu si qalinka haba ka dhacay bartiis kama dhaqaaq waxaan idin qor anuu xanuunka ugu dhacay maxaa kaa galay adigu xal la qarqaraysa السلام عليكم خياري كلنتو wanaagsan ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi Soomaaliya waxa uu kamid yahay wadamada lagu sheego inuu aad ugu yar yahay markay timaado xanuunada HIV/AIDS-ka oo ah cudur aad iyo aad adduunyada looga hadlo isla markaana muddooyin dheer soo jiray laakiin magaalooyinka qaar waxa leeyahay waa ku soo kordhaya oo dadka ku nool waxa laga yaabaa in cudurku ku faafayo haddaba waxaan rabnaa inaan wax ka kororsano aan ogaano dad badan oo Soomaaliya saad la socotaan cudurkan qalqal ayay ka qabaan oo aad ay uga cabsadaan laakiin waxa jira dad Soomaaliya oo la nool oo u bareeray inay dadka la wadaagaan xaaladda cudurka iyo waxa uu yahay waxa sharaf weyn ah inaan magaalada Garowe kula kulmayo Bashiir Cusmaan Cawad oo degan magaalada isla markaana la nool xaaladda xanuunka HIV/AIDS Bashiir waxa uu aad uga qayb qaataa wacyigelinta AIDS-ka oo dadku u sheego xaaladiisa iyo sida looga badbaadi karo Bashiir ku soo dhaw barnaamijka aad ugu faraxsanahay inaan kula kulmo runtii waana kugu dhiirigelinayaa inaad ka mid tahay dadka hadda aad iyo aad uga qayb qaata wacyigelinta ka hortagga cudurka AIDS-ka iyo ka badqabkiisa ku soo dhaw barnaamijka Bashiir waa mahadsantahay ayaan la aad iyo aad ma u faraxsanahay inaan maanta ka soo hormuqdo ha noolaato waana ku mahadcelinayaa ayaan la Xuseen wax badan baan horta meeshan ka daawado laakiin inaan iska daawado aad baan ugu faraxsanahay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan oo taageero badan oo mugl ah taageerto oo aad iyo aad sharaf iyo karaamo iyo haysa maadaama wax aan qof bilaadan ku dhiiran karin oo adag aan anigu kulay sir waad ku dhiiratay in kasoo rag iga horeeyay ay jiraan laakiin ayagu ma soo bixin inay maartay caanimadooda ma soo bixin laakiin qaabkan maartay hadda looga sheekeynayo Soomaalida xanuunka waxa lagu gartaa oo la yiraahdo xanuunka horta Soomaaliya jooga oo kale waa HIV laakiin haddaan AIDS loogu darin qofkii fahmi mayaan dadka laakiin AIDS Soomaaliya kama jiro marka waa xaalad la maro waay xaalad la maro waa waxa weey waa markaad gaartid waa 1 2 3 4 markaad gaartid qofkii wuxuu noqonayaa qof markaas AIDS la nool waay Bashiir waxaan rabnaa markii aan ku bilowno bal marka hore Bashiir waa kuma cudurkan sida uu kugu dhacay iyo sababihii keenay inaan macluumaad badan marar badan oo ka sheekaysay laakiin maanta fursad weyn aan haysanaa si fiican aan uga sheekeyn karnaa marka bal aan ku bilowno see u dhacay cudurkan sax way marka horta niyow waxa weey waa ku celinayaa waxaan ugu celinayaa in badan oo daawan baa jirto laakiin ha noolaato ku xiran ummadda Soomaaliyeed inay wacyigelin u noqoto waxaana dadka dhibaatada haysata waxa weey in lagu celceliyo way fiicanta wax kasta waxa yeelay qof waxaad arkaysaa suuli intaad ka gashay suuliga suuq u dhaqay nafta ka dhacday oo leh ina wax loo kala qaaday wax kala dad kala garanayeen in loo sheego waa wax aad iyo aad u fiican marka suulidaad gashay dib loo dhaqay suulida nafta qabatay qofkii 9 saabuunad lagu dhaqo kala nooc waa wax ma ogtahay aqoon darra u keenaysa xumaan kama aha Soomaalidu dad waa isqasaariye marka in dad lagu celceliyo way fiicanta aniga horta nolosheeda hadaan ka warramo anigu waxaan ku dhashay degmada Afmadow adu qiyaastii waxaan isleeyahay hadda wax qoran ma jiraan laakiin 9 waxaan leeyahay 75 meelahaas bay ahayd waxaan aad ku soo koray miyi ku yaalo gobolka Gado abtiyaashay baan ku soo koray oo jooga meesha la yiraahdo Buurdhow iyo aaggeedaas daga iyo Baardheer iyo halkaas aan ku soo koray ku weynaaday anoo 20 jir ah baan halkaan imid marka waxyaabo markaan halkaan imid waxaan qortay askari baan noqday shaqada ugu horeysay reer miyitu askari ay noqotay waxaan sameeyay marka maadaama aan aqoon soo baran waxana aan aqoon badan lahayn laga yaabo inaan meelahaas loo xijiito quraanka iyo wax ka fahmay laakiin aan lahayn halkaan marka wax barashadeedii waxay ana isbari jiray anoo askariga ah maadaama aan ku jirin dadka qayla iyo dadka maarta waxyaabaha sameeyay aan ku jirin ilaa markii dambe aan gaaray heer aan gaaro ilaa sarkaal aan noqday oo shaqeeya oo la aaminay oo ummadda u shaqeeya waxyaabo badan soo qabtay sida airportka kale airportka Garowe ilaa 5 sano taliya ka soo ahaa kontaroolada magaalada kale waxaan ka ahaa wax badan baan soo joogay ilaa 5 sano kale saliyada kale waa soo maray
marka alxamdulilah waa soo shaqeeyey ha ahaatee adu waxay ahayd 2006 ayaa waxaa dhacday waxaan isguursanay gabar adu gobolada Soomaaliya gobolka ka soo jeeda oo markaas deegaankan aan ahayn gabadhaas waa dhistay waan aroostay aabaheed baana markaas siiyey oo aniga marka aan weydiistay anaga heshiinay laakiin aabaheed aan weydiistay waxa dhacday marka waxaan guursaday bishii 8aad waxaan guursaday bishii 8aad bay bishii 8aad baan guursaday 12 xanuunkii baaba laga helay isla sanadkii gudiis waxa kalifay marka ina isbaarto marka waxa kalifay waxay ahayd gabadha waan isguursanay waa aroosay waa dhistay gabadhii xogaa waxaan arkay adu siyaado jirto aniguna xanuun baa qabtay xanuun aan garan waayo oo la labo hayso dhidid tira badan xanuun mar walba iska hayo meelaha marka aan iska barbaari jiray xogaa iska martiyarka aba iska baara xanuun kasto iska baar waa laga helaa gaas haddaan iska baar waa laga helayaa tiifowga burseelka malaariyada waxaasoo dhan waa laga helayaa xanuun kasta oo jirkayga ku jira soo baxay waxyaabo kalifana waxa weeye markii fayraska jirkaaga soo galo oo difaacaga dagaal ku socdo waxyaabo kale xanuunada kale oo qabtay baa imaanaya waa nuglaanaysa anigu aad u xanuunsan ba gabadhii waxaan arkay socod badan sameynaysa marka waan la hadlo waxaan ku yiri arrintan maxaa soo gurigaaga reerkaada ma joogtid oo kale saas oo kale ku yiri bas adigu waxay markay dareentay inaan xanuunsanahay waxyaabo badan oo aan ku arkeen way jireen oo markaan iraado nabar ba ahayo aan sarita isku tuuro oo aad waxyaabaha ugu badan cajis aan kala go' lahayn jirkayga waxa ka shidnaa waxaan caadi ahayn qofkii taabtana waa iska qabooba qandhaan caadi ahayn goormay kugu bilaabatay marka waxay ugu bilaabatay 2 bilood iyo bar markaan joogay ugu bilaabatay ilaa bil iyo bartaas aan wada joognay iyo gabadha aan wada joognayna waaba ka sii dartay waa sii socdo maalinba meel baan ku sii harsanay dadka dhiiggiisana uu kala duwan yahay dad baan waxba dareemin inta badan laakiin anigu waxaan ahaa noocaas dadkan markii maartay u soo ritay marka sariirtaas ku tuurtaa nabar ayaa tirada xanuun baa ahay markaan iraado way ilmaysaa marka waxaan saamar dhowr jeer iyadoo ilmaynaysa arkay waxaan istiin maxaa kugu dhacay ma anoo dhibanaya lagu sheegay maxaa dhibaato ah waan fahmi waayay mugta marka marnaba waxaan aqoon darrada iga haysata darteed baan horta u hadlaba xanuunkaasaa kugu dhici karaba maba aaminsanayn marka way oysaa waxa tiri marka maxaa kugu dhacay ma iraada marka waxba wallahi ma xanuunkaadan ka naxsanay bay tiraada xogaa marka waxay dareentay anoo dhaqaale iyo maartay si wanaagsan oo la dhaqmayo wanaag ku sameynaya marka waxa iska bedelay markii hore waxay ku jirtay oo aniga ay igu tala gashay iyo markii dambe tiri qofkan kalsoonida aad ku haysatid iyo wanaagan waxay xogaa isbedel baa ku dhacay qofti saan qiyaasay inay ku khiyaantay dareemaysaa marka halkaas ka fikiraysaa way qof wanaagsan ay amarkan waa iska dhac qof yarna way ahayd dhowr 20 jir marka waxa dhacday maalin baan marka la yira afdhaafnay oo guriga joog wax saas oo kala ah anigoo maqan shaqo ku maqan habeenkii dambe ayay wax alaabtii intay gabdho u yeeratay ma isla meesha ay ka soo joodo marka ka soo joodo habeenimo alaabtii la rarta subaxdan guriga tagay mise boorsadeyda kaliya taala oo dharkii daadsan yahay si qaab daran markaan la hadlay oo niri maxaa dhacay guriga ugu gurto saa u yeeshay alaabta u rartay saa u yeeshayna waxay tiri waad dhimanaysaa waadiga ugu qeylqeylinayay ugu la soco waa ku sumeeyay wax noocaas oo tira badan bay subxaana malikal qudus marka aniga ma soo dhigan ba xanuunkan odayaashii baabuurta wax gelin jirtaan moodo moogta waan u qaatay waxaan dhalinyarada midna ku haysay qoladaas ka tirsanayd oo marna marka halkaan ma soo dhigan aad iyo aad marka waxa dhacday inaan gabadhi aan iraahdo ma garanaysa maxaa sababa maxaa samaysay maxaa adu waxyaabo badan su'aalo badan weydiiyo waxaas dhan inta markii doon telefoon ugu dimisay marka gaariga saaran tahay maya weyba joogtaa magaalada joogtaa waxay samaysay waxa nin ila socday oo sarkaal ah oo saldhigga dhexe haystay oo cadceelaya meeshan waa ka xusaya oo ama AIDS qabtay anigu HIV iyo AIDS waxaasna ma kala naqaane waxay ama AIDS qabtay qofta saan xanuun aan garan waayaa ay haya intaas isu ka raacday aniga marka yaqiin bay noqotay hadalka ninkan yiri iyo hadalkay tiri iyo xanuunka hayay waxba isku geystay waan soo tagay boorsadii anoo cagajiidan soo qaatay gaariga hataa alaab baan ka baaro waxaas ama qax ku xireen ugu dhijiyay gaariga marka waa fiirfiiriyay waxba waa arka waa iska soo tagay reer kalaan lahaa reerka kalaan imid haddaan reerka kala imidna waxa dhacday waxaan gabadhii xaaska u yeeray arrintii waan uga sheekeeyay waa gabadhii waa ay dejisay si qurux badan bay ila hadashay waa
marka caruur weyn baan joogtay guriga waxa dhacday marka waa iska seexday maalintii ninkii aniga maxaan haystay marka saldhiga galbeed garwaan haystay saldhigii marka ninkii igu xigay waxaan ku yiri waa xanuunsanayaa saldhigii waa inaad joogtay adigu ilaa biri ku imaamayo maadaama mas'uuliyad badan ay saaran tahay oo saldhigyadu ay ka khatarsan yihiin meelaha kale oo dhan marka waxaan sameeyay waagi markuu bariyay oo la quraacday oo muddo la joogay baan waxaan tagay isbitaalka weyn meesha la iska baara ma aqaan marka hadda xaruntii anaa oday ka ah laakiin markaas baan qoon dadka anaa geeya anaa mar walba xiriir laakiin markaa ma aqoon qaab wax uu sheegay dadkina waa fahmi waay waxaan sameeyay marka waxaan dhiig baan shubayaa waxaan rabaa inaan isbaaro hal geeyo meesha baarista bas in yaroo lacag yar baa laga qaad aan badnayn oo dhiig maartay dhiig baan shubayaa markaan iri meesha baan tagay warqadii markaan qofka u dhibay dhiigayga qaaday waxaan ku yiri xanuunkaas aan iska baaraya wax kale ma jiraan iyo waa shaki qof dhalinyaro ah oo garanayo oo kulay dhalinyaradaas ma garanaysaa meesha ka shaqeysaa baa iga qaaday hadda ilaa hadda ma garanayo anigu laakiin maalintii sidii yeelay si fiican bay ahayd qurux badan markuu dhiigga iga qaaday wuxuu la galay baaritaankii dad badan baa iga dambeeyey baan arkay soo waraaq soo siinayo oo jawaabtooda siinayo anigina mar buu intuu soo baxo buu saa ii fiiriya xaqi anoo fadhiyo meel xagga buu fiiriyay dib u noqdaa marka waxaan sameeyay waa labisna tuuta qaba waa qalabaysnahay marka wuxuu isleeyahay aniga marka waxaan rabaa intaan isbaaro inaan shaqadii soo fiiriyo ninkii marka waxba istusay markii aan arkay in xaaladdu wax qasan yihiin waana markii iigu cabsida badnayd sidoo markii xaaladaas marka taaganta markaas oo ninka soo baxayo noqonayo lugaha dhulka aan ku hayo ma adka xaaladdu way adagta waa baqayaa waxaana dee kow iyo kartab inuu yahay waa iska dareensanay aad ba dhimatida maxaad ku dhimatay waxa weeye qofka bini'aadankana hadee laba jeer la abuuri mayo waxa is leedahay naftu waa hal mar marka waxyaabo kale istusaysaa moogta caloosha intaa iska gediyeysa maxaa kuu geeyey maxaa kuu geeyey maxaa lagu oran doonaa khasab waad qabtaa ma qabtid waxba kulli caloosha saas u rugmaysa waa marka ugu baqdinta badnaameed ninka saaxiibka askariga ahaa markuu kugu yiri kow tuhunkii koobaad ahaa armay aids qabtay adigu cudurka ku hayay xanuunkii waxaas tiri alla ilaahay waa jira waxbaa jira waay meesha isbitaalkan joognaa marka waxa dhacday ninkii wuxuu yiri wiilkan u tagay gudahan anaa u galay waxaan ku yiri kaale waa u yeeray buu ii soo baxay waxaan ku yiri war nin iimaan kale ma ahiyo nin islaam oo ilaahay abuurtay baan anaana ku imin warka ii caday soo dib intuu noqday warqadii la soo orday buu gacantan bidix gacantiisa midig saa igu qabtay waa dhaqaaqna meesha wixii la dhaqaaqay dadka lagu baaro oo caadiga qolka u furan oo caadiga oo maartay VTC-ga la yiraahdo halkaas buu yiri ina keen warqadan waxa laga yaabaa inay been sheegayso meel waxa jirta lagu hubiyo oo toos oo dadkii wacyigelinta iyo dadkii macquulka ah intaba ay joogaan markaas aan ku yiri war haba ii dambaystaas wixii ma iga aragtay mise kumaan arag soo yiri positive waad qabtaa xanuunkaas بشيء لكن أدودنا وخلص مشكلة لكن تان كلا صحن حق أنكم لا حول ولا قوة إلا بالله أنت مركو يري عادي بقى نقضه بقدين تترى بدنا ويجهرتي مركو كل شيء مركو إيش شيء وابا يجهرتي عادي لكن مركو رتوغش أكو حكومة أو توغش أكو حكومة ماشي ميلا المريض بقرمين ماذا حتى سكلوا إياها عجها دولك وأكو هين لا دي أنا لقرن كرين حتى ويجسعد آد بنو بقية لكن مركز هو نفس قام بس كقاضي نسام وقت تقف توغش الله صحيح كما بدوني marka adigu aad wixii aqoon u lahayn qof qorigii loo soo wato oo la leeyahay goormee kugu dhacaysa oo indhiha laga xiray la leeyahay kale kama baduwanidba halkaas xaaladooda maraysa la ilaaha illa allah marka alxamdulillah rabbil alamin waa ku faraxsanayn horta xanuunka igu dhaco maxaa yeelay ilaahay baa qadaray waxaana ka wadaa nabarka waa laga siibay marka nabarka waa laga siibay meeshii baan soo galnay saddex tasti oo isu eg وهذا ردتك اللي جبارة قفك اللي جشك اللي جبارة هل حب قفك اللي جبارة لكن مركب قفك الشك وميت جشوا باسف على جبارة صدح تستيبال سوقا صدح تستيبال جبارة قبل أن وذا جراني ودخاتير قيبتوا ديهين بامشي وذا شوي وأنا كان صدح تستيبال بوستيف في شيء حنوك واقف تابعي أنتوا برتانك سعودي كور أنتوا برتانك سعودي حلو والله مدري منه ده وحن كيف فكري قبلي فكر كوبا أيضا كيف فكري مفرين ويقول حرنيت inaan qabto inaan maxkamad horgeeyo waxaas oo dhan baa igu soo dhacdhacaysa mar walba iyo xaaski kale inay ku dhacay xanuunkii qoyska balaarnaa kugu weynaha xanuunka igu weyna taas
macnaha nin baa waxaa jiray aan sheekada kugu darsaday gabadhii la siiyo waa dhimataa se waxay u baxshay Soomaalidu waa dhib meeranta moogta 4-3 iyo waxbuu dhashay dhahan dadka waxbay ku dhahaan ku sheegaan Soomaalidu waa moogta wax Ilaahay qadaray wax kala ka dhigaan marka noocyada kale reerkaaga baa dili doontaa fiicnaayo quruxda badnaa aad iyo aad baan uga sheelay arrintii aynoo sidii oo aad u xanuunsan oo halka nambar iga hayo ayay gabdhihii waxay ula taliyeen inaan isqariyo inaan waxaan ku wax qarin leeyahay meeshii lafteedaan go'aan ka qaatay sida lay qalday baan ogahayo wax aan qarinay inaba heerta ma jirto inta Ilaahay hadlayba message waxaan u qoray furiina ayadii furiig markaan u qoray oo isri way akhristay muddo cabaar ka bacdi waan wacay wayga qabatay waxaan ku yiri lacagti meherkan ku hayaa xagee joogtaa hadda shaqan ku jiraay meel halkaas hawl baan ku jiraay halka meel halkaas oo noocaas barxadda garwa bay wala balanta galabti nimaan marka waxa jira qofka marka xanuunka laga helo qof laga soo hadii qofka xanuunsado ama qofkaas dhinto ama qofkaas wax ku gaaraan ama uu dawada diido qof laga xiriiro oo saaxiib la oo ehelkiisa ama asaga uu ku kalsoon yahay oo warkiisa aan gudbin karin marka nimaan ilmaadana magaalada joogaan wacay waxaan ku yiri gabadha xaaskana soo qaad gaaro watay xanuunkaas laga helay niyow waxa samaysaa ninkiyo si kala oo gabadha xaaska weynaa soo qaaday meeshii waa la keenay asaga iga argagax badnaa xaaska waa la keenay markay timid waa la baaray negative falay gabadhi biqudratillah waxa kale jira 2 bilood oo kamid inta 4 bilood oo gabadha aan qabay uma tigin xaaska Ilaahay amarkiisa guriga markaan imaado baa wax nabar saal isugu ka taagaya qof salaatul leelka tukato Ilaahay taqaan oo wanaagsan oo sharaf leh markaas nabar baa isku qanna iska ka qabanaysa waana inta ugu badan inta qannada ay qabatay de waxa qofka hadduu xanuunsan waxa yaraanayo rabitaanki hamigi baa tagay meesha ka tagay ka baxay marka xijaab Ilaahay uga dhigay xijaab baa loo dhigay arinta hadday dhacday waxaan gabadhan 2 bilood maarag bilka bacdan waa soo celinayna baan markan dhir tadeede waxa dhacday wiilku uu yimid gabadhii na meesha wala balantay xaaskii way soo raacday meel bay ka shaqeysay shaqeyn ka jirtay way soo raacday guriga bay keentay maalintii dhan bay waaninaysay hal eray marka ugu tiri oo aad marka aniga isii dajiyay xasuus dambana waa iska galay waxaan soo galay wali aanan ilaawin oo markii ugu horeysay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu ikhra lagu soo dajiyay oo idada uu leeyahay ay qadiijo ku tiri waan soo xasuustay oo dib inaad update garaysameysid oo Ilaahay xaqiis u noqotid waa muhiim qof kasto bilaadan marka waan soo xasuustay talada horeysay istaxaytir Ilaahay ku hoojin meeyo dadkana waa taageertaa wax fiican baadna ka shaqeysaa inta aniga ka aqaan bitri haraga way igu dartay inta aniga ka aqaan kula noolaa waxaan wanaag ahayn ka shaqeysaa hantidaada dadka wax ku siisaa waad la xiriidaa dadka waad caawisaa wixii xun oo dhan waad ku soo joogtaa Ilaahayna ku duleeymayo Ilaahay meel fiican buu ku wadaa ka waran hadda adduunka inta ka tagtay janno fiican heshid ma waxba waayi kartaa meel walba xaga tusaaleys salaad sunnah tukaday markii horta cabsi iyo baqdin iyo arintaan iyo filimkaanbo markii ay ugu dambeysay culayska ugu weyn ku saarnaa qoysku ahaa ayadana waa ka baxday taas markii la kala wax aad iyo aad u farxad badan bay ahayd wixii marka aniga ugu koobantay ha ahaateede oday aabahay xanuunsan iyo oo markaas waliba maskaxda iyo waxaan meel kale ku hayay iyo gabdho walaalaha iyo wixii oo dhan saxaafadii macal odayga xanuunsan waa la soo baaray waxa la yiri gabadha meeshay martay iyo aniga meelaan marayba dib baa la soo baraha adigu dadkii oo dhan isku dhaxyaaceen marka waxa jirtay gabadhii marka aan kugu soo noqday gabadhii meeshii ugu la balantay anigu marka galabtii aan soo noqday gaari baan soo dabadhigay sida anoo dagaal galaya safeena gaari way daba joogaa askarina waa ila socdaan anna gaaraan wadaa maxaa sababtu maxay tahay meelaan marayo ma aqaanba gabadha qabo kaliya ina soo xirtaarto ina xiraaro marka gabadha garwo marka waxay leedahay 2 barxadood barxadda yar meel ay ugu la balantay meeshii baan istaagay ayadoo ortaysa gaariga soo gasho lacag doona waxaan meherkaadaan ku siinayaa mugta aniguna meelaan marayo ma garanayo waxa dhacday gabadhii waxa siri hadaa saldhigaaga geysat waxaan marka filimkii dhinac kale u rogman karaa saldhiga dhexe oo umada u dhaxayso adiga aan xukumin oo taliye ka ahayn gee ba qalbiga ku soo dhacday meesh baan geeyay saldhiga markaan gudaha u galnay oo albaabka hore ka galnay weyn buu leeyahay oo gudaha u galnay baytur meesha maxaa noo soo gasay su'aal kale ma weydiin maxaa ay dhiska ugu ridaay
hadal waa ka soo bixi ina isbaarti ma oga marka ma oga maxaad xanuunka igu riday ayris maxaad igu riday aan la soo istaaga anoo weliba xanaaq muujinaya marka way naxday aad bay u naxday soo deg baa iriyo iskarigi baa albaabka fur anna dhinaca kale aan ka degay gaariga oo aan xirxirno iska istaaran baan ka degay gudahan galnay oobiga markaan tagnay laba askari baa waxay fadhiyaan dhinacaas oo kale qoryo sita oobi qoryana waa fadhiyaa cidlo wey waqtiga waa waqtiga salaada laga soo baxaa casar oo weli dadkii soo gelgeli lahaa iyo weli ma imaan markaasaa gabadhan inaa ii xirtaan rabaa oobiga waxaa la rabaa qofka wax lagu geliyo iskama xiro qofka maxaa dee warbixin jirtaa warbixin waa inaad sirta qofka waxaa sameeyey anaa dhalay ama saanayd xaaskaaga iskama xiran kartid markaasaa xir naagta aydis bay igu riday intaa markaan iri wiilka qalinka haye dhulku kaga dhac kiis culus waay labadii kalena albaabka isku qabteen kii hormari lahaa kiis wiilkii la maqlay maaha wax la maqlay iyo wax meeshaa yimaaday iyo maaha ma ah subxaan qof walba wuxuu jiray inta qof ku taaban lahaa qofkaas jirkiisa kore ku taaban lahaa yuuna ku taaban carar ninkaana xoogaa deganaayo wuuba si qalinka haba ka dhacay bartiis kama dhaqaaq war waxaan idin qor anuu xanuunka ugu dhacay maxaa kaa gala adigu maxaad la qarqaraysaa oobigiibu geli isagoo naxsan ayadiiba weydiiyo yiri arrintaa maxaa ka jira waxba kama ogi xanuunku sheegay markiiba warkii labadii nin oo bannaanka usii ordayay askartii meesha joogtay sii gaarsiiyeen bannaankii bay gaartay qaadoloyaashii bay gaartay dabadeed waxay gaartay magaalada afarteeda koona kala carara wixii ugu horreeyay aan sheegay bay lahayd oo la fahmay oo faafinteeda ugu horreysay ahayd markaasaa waxaa isla wax yar ka bacdi markii gabadhii bannaanka la fariisiyo bannaanka xoogaa aan weli qol iyo waxba la geyn baa waxaa ii soo galay CID oo ordaysa iyo qoladii maxkamadda wixii oo dhan oo wada socda bal ka waran xaalad si maxaa jira arrinta maxaa ka jiro wixii markuu ii soo galeen baa waxaan idhi gabadhan waxaan rabaa in la wareysi laga qaado kamera la soo qaato waa la duubo way inkirta anigana codkayga waa duwan yahay iyadana way duuban tahay waxaan idhi marka waa suurtagal inuu meel kale iga imaan karo laakiin anigu meel aan maray waxaan galmaa lagu qaadaa baan maqlay moogta wax kale markaa ma aaminsanayn cid kaloo igu riday ma jirto xaaska kalena waa la baaro ma qabto labadooda waxaan ahayna anigu ma galmoon mana u tegin ha ahaatadeede waxaa meel kaloo way iga imaan karaa gabadha waxay sheegaysee ha la baara iyada qoladii saaka ay baartay baa loo yeeray way yimaadeen nin dhalinyaro abaabaaray waxa la positive way qabtaa xanuunka markaasaan waxaan xasuustay boorsa ayada ay wadatay kaniin ana weligii arag baa ku jira oo tiro badan oo dee bacal laba bacood ku kala xiran waxay sameeyaan dadka dhuunta oo isbaqa baalka cagada yaryar buu kusoo baxaa iyo cagad ku jirta 3 bilood mid bilbil ku jiraan waxaas kusoo baxaa mid 6 bilooda waxaas kusoo baxaa cagadahaas kusoo baxaa cagadahaas waxay ku shubtaa dadka waxay shugaxaas diidaysaa moogtay cagada way qaylsaa shugaxaas dadka inay markaan maxaa ka dadka qaar inay gartaan calaamada ay waxaas inay gartaan maba yaqaanaan dadka inta badan waxay marka bacbay ku shubanta marka waxaan ku yiri boorsadeeda kaniin aan garan waayaa ka buuxin ayadoo maalin la qaysana waa arkay waxaana ku yiri maxay tahay nabaraag marka ku yaaleen ma xasaasiyada loo cunaa bay ugu tiri allah run bahalkaana meesha aan soo galayaba ama aduu kugu dhacayaaba marna ma aaminsanayn waxa dhacday marka boorsada ma wadataa marka ma wadato hataa waxay diiday meeshii boorsada taale taleefankeeda qofka ugu dambeeyay ee wacdo oo ana ugu dambeeyay amaleen qofkii ugu dambeeyay qof 79 wataba ugu dambeeyay oo lambarka boss page-ka birbeerka ma boss page-ka oo lacagta caadiga friiga ah qof wata baa qadka ugu horreeyay qofka wacdo ugu qofkii waan wacna gabar marka aan qaraabanahay oo markaa kusoo degtay oo ma garanaysaa iyadana qaraaba yihiin bay noqotay gabadhii anaa qabtay ma heblaha codkeedaa ma gartay yaa ii waran abti baan marka gabadha waa abti fiican gabadha noocaan oo lambarkaan leh maday kule iyadii lambarkeedaan ka waca haa ana ila joogtaa xagee joogtaa naagta aidis bay igu riday macnaha ma oran wixii moogtay hataa qofkii qari waxbaa si iga ah markaa laakiin dee deganaanshaha kontroolkaygaa dhunsan ma isdhihin gabadhan waxbaa ka qaldanaan doono intaas xalay la soo seexatay habeen hore la bariday dee 2 habeen bay iga sii maqan tahay isma oran qayli bay gabadha ku furtay caruurteeda cunto siisay kana ilahayda afarta oohin gurigeedu waaba gartay markaas waxaan si aan loo oran waxba ku shiray waxbay ahayd waxaan u dirnay qoladii CID-da yarkii dhakhtarka ahaa iyo qoladii booliiska baa israacay
guriga bay tageen boorsaday soo qaadeen horteeda lagu furo ayada horteeda lagu furo fureeda ayada gacanteeda ku wadatay boorso yar oo garab ku wadatay bay ku jirtay waa la furay waa la firay yarka awal baarayo dawada bixin jiray baa meesha jooga saas u firay ejkii labaad bay maraysaa stagekii labaad bay maraysaa bay qoftaa maraysaa dadka dawada googooyana u badan noocaas macnaha fayraskeeda hayge haddii dawada toos qofka u qaato soo ogurida waaba adagtay dad badan oo isqabo hadda maxaa qanata 7 qof naaga u dhashay ninkanu ma qabo gabadha ma qabo 7 bayna u dhashay gabadhina way qabtaa ninkiina ma qabo 7 ciyaalan bay hadda u haysaa qofku markuu dawada toos u qaato stressna ku jirin jirkiisu ka dhamaanaya wax la yiraahdo undetectable jirkiisu intuu ka dhamaado wuxuu noqonayaa viruskii zero ka noqonaya waay qofta dawada waa laga helay marka qofta dawada waa laga helay soo tan ma sidee waa qabay waa adkeynay waa duwanta hadda marka waxaan ka codsaday inaan la sii deyn oon la faafin warkaan maxaa yeelay ayada wejigeeda iyo alaabtii wixii laga duubay ma anigu ma rabo inaan wax dhibaato loo geysto ayada xaaskayga soo noqotay dhibkii anigu ugu dhacay laakiin dad kale gaarsiin kartaa soo ma haddaan la aqoon way gaarsiin kartaa laakiin wixii haddaan lagu heshiin oo ayada xaggeedii culays ka taagan yahay inaan dhibaateeyo aanan wax awood kalena u hayn anigana nafsi aan ku sii qabo oo maanta guriga iisii joogto aan jirin oo waxyaabaha ugu badan oo sii cayrinaya waxaa ka mid ah familkii adigu aad ka dhalatay gabadha hataa muqdisho deganeed oo aan walaal ahayn intay baangad soo qaadatay meesha taaganta oo leedahay intaasaan ka fogeynaya qofkii marka maba agtayda maba joogi kartaba dadkii ehelka ku ahaa waa qaracan ah marka ma samayn kartid oo dadkii waxaa ma qiimeeyaan Soomaalida waa taqaanaa qabiilna marka gabadhan guur hore soo martay guur soo martay hal guur bay soo martay laakiin qiyaas ahaan guurkaasi qofkii isaga ahaa waa isnaqaanaa ma qabo siyaabo kale ugu dhaca marka waxaa dhacday arrintaa markay ugu dhacday gabadhii waxaa la sameeyey wax la yiraahdo maxkamadda kale maxkamadda ciidanka kale waxaa la yiri waa xukumaynaa anigu marka waxaan arkay qodobada loo cuskanayo iyo waxa fogaanta meesha la xil gaarsiiyay iyo aniguna waa soo taagan waa nool qof dhintay qof dilay tusaale ahaan qodobada loo cuskanayo meelaha mareysay waxaas oo dhan baan la socday markaas aan isiri aniga dib isu qabtay aabaheedan wacay arrintii u sheegay wixii igu yiri waxaan ku iri gabadhaadii xanuunkaasi qabtay waadna ku ogeyd waadna ii qarisay qof islaam miyaan ahayn maxaa saa u yeeshay si adeer waan maqlay biir laakiin ma ogeyn markaa ku siinay laakiin dib baan ka maqlay markii garow lagu xiray ayaan ka bacdan wac markii garow lagu xiray waxaan ogaaday in xanuunka qabtay gabar anigu aan dhalay baas dawada u soo qaadi jirtay ayada warka ii sheegtay gabadhiisoo kale gabadhaydii kale usoo ogeyd baa ii sheegtay arrintii inay qabtana waa lii sheegay 3 sano ka hor buuna ku dhacay laakiin asagu ma ogeyn marka ma ogeyn waa ii dhaartay ma ogeyn wuxuu yiri marka anagu dadka xeer baa ka yaalo ninka la dhibaateeyay xaqaagii baan diyaar la ah ama waaba ku xirantay reerihiina hayste meesha marka qabiil ahaan marka ii xijinaya moogta reerihiina meesha joogo hayste waajibka alleeda ka gudub marka waajibka ma dilba ma wax kale adigu ma aqaan laakiin waxa ku adeer haday saasto ilaahay kugu ogey adna wax kaama rabo ayada lafteedana cafis bay uga tahay waxa ilaahay abuurto aan doonay mar sheekadan aniga ugu koobantay aniguna meeshaan doono ilaahay wax ii og ilaahay waa badbaadiyo hadda reerkii waa ii badqabo reerka tuu ii badqabo wax ulayso isaaran ma jiraan aniga lii walwalaya kaliya laakiin waxa ku daraan leeyahay iyadoo gabadhii iyo xagga iyo meel kasta iyo xagga dhacaan marka xanuunkii badnaa iyo waxaas iyo weega haray dadkii laakiin waxa dhacday ceebaha ugu badan oo sheegista ay keentay waxa kamid ah ciidan baan taliye u ahaa meel dhan baan haystay in ciidanka rag kamid ah salaam alaykum waraan iska iro iska markaan tagay meesha oo yiri nood alaykum salaam tusaa gacmaha u qabsaday gadaal u ceshaday ay dhacay salaam ma jirto waxyaabo soo maray kamid ahayd waana dareemay in aqoon darrada ay kamid tahay wixii uu qabay anba sida waa yeelay hadaan qof sidan hal qof baan arkay aan wax xanuunkaas la nool nin hadda saaxiibaan ahay aakhira la yiraahdo hadla galka ay hadii lacala aad tagtid mari kartid wareysan kartid ninkaas asagoo dee ka warramo oo nin adaga ninkaas kaliya ar habeen dhan baan fiirsanaya soo ka hadlay xanuunkaas waana horena oo isu naqaan ciidamadan wada ahayn marka waxaan ku yiri been baa sheegaysaa oo baalka hore loo dhintay niyow xogaa lacag rabtaa xaaladda kuwaad inaad ku qaraatay marka ninkaas marka haddeerta uu ka sheekeeyaa laakiin qofku ku dhaco adaa ugu horreeyay ogaato adiga qof ogaado oo labaad baa aniga markaas waa ogeyd nin hore ugu dhacday waa arkay waan ogaa ninkaas aan arkay baan
oo waxaa ka soo wartay muddo isagoo markaa madaxweynaha waxaa ka faroola ka ahaa markaas meeshuu ka hadlay wuxuu ka hadlay meel xaflada oo odaygii fadhiyo wax oo dhan buu ka hadlay wacyigelin badan buu samayn jiray marka arrintii hadday saa u dhacday gabadhii marka waa fasaxday gabadhii waa fasaxa gaari baan ku daray magaaladan ka saaray si fiican baan u ambabixiyey way tagtay marka laakiin waxay xaggii way ka fashilanto reerahoodii iyo dadkii wada ogyihiin kulligood iyo xarigga iyo waxaas oo dhan way ogyihiin gabadha marka gabar yar dhaqankeeda bal ka waran qoys ahaanteeda dabeecaddeeda maya dhaqanka qoyskooda dad aad u wanaagsan bay ka dhalatay maxaa yeele odayga nooca u hadlayay oo wanaaggaas leh baa horta aabba u ahaa laakiin iyada intaan wada noolay maxaa ka dareemaysa ma dhaqan fiican ma lahayn dhaqan fiican ma lahayn waa ku qaldama runta markaan kuu sheego laakiin ka shalaayo mayo de wixii waaba dhaceen ma cudurka iska dhacay mise dhaqan ahaanba qof oo qof iska socotay maxaa yeelay dad kale ku riday baan garanayaa intaan weliba aniga qabay hadda qabtad kale waa faafinaysa ha taasaan garanaya marka cadaawaday qabtay gaar cadaawad gaar marka may anaaba weydiiyey baan ku yidhi qofkii marka laga helay labaad iyadoo weli xiran oo qofkii aniga uga cararaya maadaama uu qalad sameeyey qofkii aniga uga sii cararaya dhibaato kalaa sii haysata labaad aniga waxayga guur buu ahaaye qof aan waxba guursanoo dee cararayo iga dhuumanayo oo sheekadii aan ogaado qoladii baarista ii sheegayso de waxayga waa mogta banaanka yaalaan oo nin wax iga qaran dad wax iga qaran marka nin walba ma guursan jirtay mise guurka kaliya ku guursanaysa maya anooba qabay qofkaas macnaha laga yaabaa iyada lafteeda inay ninkaas asna guursatay maya iyada kelmadii aaminsanayd baan kuu sheegaya waxay aaminsanayd hadday galmo badan samayso inuu ka baxay dad baa ugu sheekeeyey qalad ka dhacay qaladka mogta waxaaba keenaya kaa u tag kan u tag kaa u tag waxa weye iyaga ku reeb dabadeedna waxaan fayraska kaa yaraado ha tago sax kaaga baxo oo maxay ku guursatay saas u dhaqmayso wallahi ma garanayo wallahi anigu ma aqaan weliba been ku sheegay markii hore waa isbaranay wanaag baan u sameeyey way iga tagtay guurna wax guuri wax arrimo midna sugul bil ka bacdi ugu soo noqotay ayadoo weliba hotel degan bay soo wacda hotelka markaan ugu tagay oo isa salaanay gabar dee dhalinyaro ah oo waxaan ku yidhi ka war haddaan isguursan okay bay isaartay maalintii labaadna aabbaheedaan wacay wixiiba marka isku dah ma lahayn qofka marka waxyaabaha aan la qayliyo waxaa ka mid ah qof dee boorso iska sito ama nin ahaado ama naag ha ahaadee meeshuu rabo marayo inaad iska guursatid dee waxay imaanaysa inaad dawada ila cuntid baa imaanaysa meesha booskaasaa soo gelaysaa waxay qofka ugu horeeya waxaa weeye waa inaad horta qofka iska baartid waxyaabaha qaylida iga keen inaan hadlaba keenayo taasaa ka mid ahay qaladaadkii kugu dhacay naftaada dib u qoomamaynaysa ha dib baan u dareemayaa maxaa yeelay aniga lafteyda qaladaadka ugu badan waxay ahayd inaan iska guursan jiro marwalba naagta socota iska guursanaysa gabadhi aan arko fiican ba xoogaa inaan guursanayo guurkayga iska badnaa wax yaroo qalada aan ku kala tegay mada baaraynin baaritaanka waxaas ma aaminsanay ma baari jirin baaritaani waxa maba aaminsanay waayahay bashiir waxaan u gelaynaa marka qaybtan bal noloshaada iyo xaaladda aad martay iyo waxyaabaha ugu badan hadda aad la kulanto arrimahaasaan ka sheekeynaynaa qaybtan koobaad waxaan jeclaa inta inaan ku gabagabayno daawadayaal qaybtan inta haynoo joogto waxay noo madala qaybta labaad hadduu allah awoodda la ogolaado oo waxyaabo badan kaga hadli doono sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeennu waa kor u qaadidda wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid